You're a boy, right? No, I'm a girl. Who told you you were a girl? Mommy, When did she tell you you were a girl? cause I love girls. Oh, I see. So mommy told you you were a girl? muuqaalka sidaad ugu jeedaan waa canug yar oo wiil ah oo la weydiinayo jinsiguu yahay adigu wiil maa tahay mise gabar ayaa tahay wuxuu ku jawaabayaa anigu gabar ayaan ahay sababtu maxay tahay ilaan wiilnimo ayaad ku dhalatay wuxuu ku jawaabayaa anigu inaan gabar ahay ayaan isku arkaa sababtaase wuxuu ku sheegay inuu gabdhaha aad u jecel yahay muuqaalka dabcan wuu sii dheeryahay waa arrin yaab leh sidoo kale dhacdadan waxay ka dhacday gobolka California ee dalka Mareykanka waa dhacdo aad iyo aad saameyn u leh waxaan jeclaystay inuu soo gudbiyo bulshada si ay ugu waana qaataan sidoo kalena ay tahay in wax kasta laga digtoonaado even haddaad dalalkaas aad joogtid ay ku qabsan karto dhacdo midaan oo kale ah adiga iyo qoyskaaga canugan yari hooyadii iyo aabihii ayaa isqabsaday marka hore oo ku kala tagay maadaama hooyada marka hore ay jeclayd inay gabar ay u dhalato waxay danta ku qasabtay sidoo kale sida iyadu ay rabto amaba mashruuc lacaga ay ku qaadataa si ay wiilkeeda ugu bedesho islamarkaana ugu dhigto ee gabar aabihii iyo hooyadii waxay isku dagaaleen canugan yar wiil nin raga ayuu ahaanayaa iyo maya gabar ayaan u bedelayaa bal sababta wax yar baynu arkaynaa oo waxaa idin tusayaa sababta kaliftay inay kala tagaan hooyada iyo wiilkani aabihiisa ee laisku haysto sidoo kalena isu arko isagu inuu yahay gabar aan dhamaystirano muuqaalkaasi California says that I have to pay for the chemical and physical castration of my son as child support. I'm not going to pay that child support. I'm not going to pay anything to hurt my son. And that means you'll be going to prison? California is going to send me to prison for that. So, Jeff, you are going through something, you've been going through something that is probably a father's worst nightmare. Yeah. Tell me when this started. Started when my son was about 2 years old. My ex-wife, who's a pediatrician in Capel, Texas, started thinking that he might be a girl and started trying to transition to a girl. And when I tried to put a stop to that, she filed for divorce and used her relationships with care providers to force me out of my house. And so I moved about a mile up the road from my sons. She filed for divorce formally, and I had 50-50 custody of him. And just after his third birthday, you know, I took the first iPhone video I'd ever taken, and it was him telling me that he thought he was a girl because his mommy tells him a girl. You can go onto YouTube and just search for "Mommy Says I'm a Girl." You'll find that video. She was telling him things like, you know, she would put him into timeout and say, "Don't be a boy. The monsters only eat boys," and weird things like this. And she began to then socially transition him, and that led to a titanic battle in the state of Texas that culminated in me. And she began. waaya ninkan odayga muuqaalkiisa aad u jeedaa waa aabbaha dhalay ee wiilka arrinta la yaab kale ayaa ah in wiilka hooyadii ay ugu sheekeynayso in wiilasha la cuni doono sidaa darteedana waxay ku tiraahdaa markasta wiil ha noqonin inaad gabar ahaatid dooro ninkan odayga waa ninka canuga aabihiisa wuxuu sheegay in maxkamadda California ee dalka Mareykanka ay ku xukuntay inuu bixiyo wax kastoo qarashaada canugaas sidii looga bedeli lahaa ee ragnimadiisa isla markaana loo bedeli lahaa haweeney hooyadii iyo isaga ay ku kala dagaalameen hantidiisana sidoo kale 50% ayaa loo qaybiyay oo iyadu ayay qaadatay furiinka ayay dalbatay kadibna waxay si xoog ah ugu saartay guriga xaaladdu bariga dhexe ayay sii maraysaa oo way sii xuntahay ninkan odayga marka waxa lagu haysaa hadda waxaad bixinaysaa wax kastoo canugaasa oo u baahdo kareemaadka shoppinga wax kasto sidii dumar ugu ekaan lahaa si rasmi ah oo u ekaan lahaa shakhsiyadiisa qaab oo dumareed waa inuu ku bixiyaa haddaan diido wax weyn maahan allah waxaad galaysaa xabsiga ayaad ku uraysaa haddaad diido inaad bixiso wax kasta lagaaga baahan yahay ee waajib kugu ah sidii canugaas wiilnimadiisa ugu gudbi lahaa isla markaana u noqon lahaa gabar
waalidka ayaa intaasi ku kala tagay. Sidoo kale muuqaalo ayaa la sheegay in baraha bulshada uu soo dhigo canugan hooyadiisa ay ku kaalmayso, taas oo lagu sheego in canugan iyadoo ay sheegto inuu yahay gabar, isaguna uu ku qanacsan yahay gabarnimada. ugu dambeyntiina caqabadan waxay noqotay mid saameyn xoogan ku yeesha guud ahaan dalka iyo gobolada Mareykanka, taasoo ah in dumarka qaarkii ay sabab ay u noqonayaan isla markaana ay taageerayaan in awlaadoodii iyo sidoo kale raggoodiiba ay isku bedelaan. dhowr sano ka hor ayay ahayd markii baraha bulshada ka soo muuqday nin rago oo xaaskiisa u lahaa, isla markaana xaaskiisa ay ku taageertay siduu isku bedeli lahaa jinsigiisa siduu u noqon lahaa haweeney. arrintaasi caqabad saameyn leh ayay ku noqotay guud ahaan ummadani ee maanta joogta nool. dhacdadan waxay ka dhacday gobolka California ee dalka Mareykanka. You're a boy, right? No. I'm a girl. Who told you you were a girl? Mommy. When did she tell you you were a girl? Cause I love girls. Oh, I see. So mommy told you you were a girl? muuqaalka sidaad ugu jeedaan waa canug yar oo wiil ah oo la weydiinayo jinsigu yahay. adigu wiil ma tahay mise gabar ayaa tahay? wuxuu ku jawaabayaa anigu gabar ayaan ahay. sababtu maxay tahay? ilaan wiilnimo ayaad ku dhalatay. wuxuu ku jawaabayaa anigu inaan gabar ahay ayaan isku arkaa. sababtaas wuxuu ku sheegay inuu gabdhaha aad u jecel yahay. muuqaalka dabcan wuu sii dheeryahay, waa arrin yaab leh. sidoo kale dhacdadan waxay ka dhacday gobolka California ee dalka Mareykanka. waa dhacdo aad iyo aad saameyn u leh. waxaan jeclaystay inuu soo gudbiyo bulshada si ay ugu waana qaataan, sidoo kalena ay tahay in wax kasta laga digtoonaado. even haddaad dalalkaas aad joogtid ay ku qabsan karto dhacdo midaan oo kale ah adiga iyo qoyskaaga. canugan yari hooyadii iyo aabihii ayaa isqabsaday marka hore oo ku kala tagay, maadaama hooyada marka hore ay jeclayd inay gabar ay u dhalato. waxay danta ku qasabtay sidoo kale sida iyadu ay rabto amaba mashruuc lacaga ay ku qaadataa si ay wiilkeeda ugu bedesho isla markaana ugu dhigto gabar. aabihii iyo hooyadii waxay isku dagaaleen canugan yar, wiil nin raga ayuu ahaanaya iyo maya gabar ayaan u bedelayaa. bal sababta wax yar baynu arkaynaa oo waxa idin tusayaa sababta kaliftay inay kala tagaan hooyada iyo wiilkani aabihiisa ee la isku haysto, sidoo kalena isu arko isagu inuu yahay gabar. aan dhamaystirano muuqaalkaasi.